والصلاة والسلام على رسول الله. ساكا waxaan la kulmay madaxweynaha wafdi ballaaran oo ka socda wadanka Masar. wafdigaas wuxuu nala joogay ilaa 2 casho. wuxuu ka koobanaa 14 qof. waxa wafdiga hogaaminayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee qaabilsan Afrika Maxamed Idriis. wafdigu intii uu joogay wuxuu soo maray berbera. waxay la kulmeen wasaaradda la kulmeen dhowra oo fara badan. wuxuu wafdigu ka kooban yahay xubno ka socda wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda ganacsiga, waxbarashada, beeraha, gaashaandhigga intaba. saaka markay la kulmeen madaxweynuhu wuxuu soo qaaday xiriirkii iyo cilaaqaadkii taariikhiga ahaa ee inaga dhaxeeyay innaka iyo Masar. wuxuu kaloo kala hadlay amba uu sheegay geedi socodkii siyaasadeed ee Somaliland. wuxuu aad ugu nuuxnuuxsaday abaarta baahsan ee ina saamaysay waddanka. wuxuu ka codsaday in arrinkaa ay wax nagala qabtaan. waxay ku ballan qaadeen arrinkaa in wax nagala qaban doonaan insha Allah biidni Illaahi kariim. waxay naga sugeen inuu soo gudbino baahideena. waxay kaloo ballan qaadeen inay wax nagala qabtaan xagga tacliinta, isla markaana iskaashi inaynu ka samayno xagga ganacsiga, xagga beeraha, xagga maxaan idhaahdaa nabadda laftigeeda. marka intaaba runtii way naga ballan qaadeen. waynu soo dhaweynaynaa. waxay noo sheegeen inay maktabadii dub ay u hagaajinayaan u bilaabayaan insha Allah biidni Illaahi kariim. waxaanu rajaynaynaa inuu noqdo safarkan kii ugu horreeyey oo insha Allah kuwa badan oo dambana aan isugu iman doono. insha Allah kana wada faa'iidaysan doono. xiriirkaas oo noqon doono mid mataqaana dhinac walba saameeya xagga horumarkeena iyo mustaqbalkeena. aad iyo aad bay u mahadsantihiin. kana waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka ganacsiga inuu ereygiisa ilaado. waxaan kusoo dhaweynaya marka dambe wasiir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. سيدا وزيرك arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Sacal Cali Shir uu sheegay wafdi ballaaran oo Masaariya ayaa dalka ku sugnaa muddo 2 casho ah oo maanta waa maalinta saddexaad. wafdigaasi waxay u yimaadeen guud ahaanba inay dowladda Somaliland ay kala hadlaan arrimo badan oo xagga iskaashiga ugu horeyso xagga xiriirka Somaliland iyo Masar u dhaxeeya. sida Dr. Sacal sheegay waa mid taariikhi ah oo soo jireena. runtii wafdi baa xadda loo Masaarida inooga yimaado markii ugu horreysay dalkeena yimaado. waxay aad ugu bogeen runtii nabadda iyo deganaanshaha dalkeenu martaqaana ku sugayay maanta. arrimo badan waa la isla soo qaaday oo ka horeeyo ganacsiga iyo maalgashiga ay ku jiraan beeraha sidii wax looga qaban lahaa, xoolaha, arrimaha ii sheegeen biyaha, waxbarashada sidii ay u dhisi lahaayeen ama ay kor ugu qaadi lahaayeen aqoonta iskuulada iyo jaamacadaha Somaliland. waxay ballan qaadeen inay soo diri doonaan professorro ku takhasusay noocyada kala duwan ee cilmiga oo ay ku caawin doonaan jaamacadaha Somaliland. waxay sheegeen in iskuul la dhisi doonaan sanadkiiba ugu yaraan 2 ilaa 3 iskuul oo ay ka dhisi doonaan dalka. guud ahaanna waa wafdi ay dowladda Masar ugu tala gashay in ay dowladda Somaliland dhinacyo badan kala wada hadlaan. sidaas daraaddeed aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. hadalka badankiisa Sacad baa sheegay waxba ku noqon maayo. iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa Ambassador Waliid Ismaaciil oo ah ambassadorka Egypt u fadhiya dalka Kenya ee u qaabilsan Soomaaliya iyo Somaliland. kusoo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. It's a big pleasure and big honor for me to be here, meet my brothers from Somaliland. Today we had the privilege of meeting His Excellency the President of Somaliland, who is a great figure, a great leader, and someone to learn from. I also had the pleasure of meeting Their Excellencies, the Minister of Trade and Minister of Foreign Affairs. We are trying to find best ways to achieve cooperation, extend the brotherly relations
that goes back to thousands of years between our two nations. Inshallah, we will be, you will be hearing from us more often. I hope I will be a familiar face here. And our cooperation will be much more advanced than before for the good of Somaliland people who we would like to see one of the centers of East Africa, whether be it in trade, agriculture, livestock, health, education. Hopefully everything will be great. I don't want to take a lot of time. Thank you very much, and